Cabdi Bila Cabdi ayaa waxa uu ka mid noqonayaa ergada ka qayb galaysa ciyaaraha Olombikada ee ka dhacaya magaalada London bishan 27keeda. dhanka kalena waxaa munaasabada kala soo qayb galay gudoomiyaha Olombikada Soomaaliyeed Duraan Faarax iyo waliba marti sharaf kale oo iyana kamid ah ergada ka qayb galaysa Cabdi Bila Cabdi dadkii soo dhaweeyay qaarkood oo ka sheekeeyay taariikhdiisii ayaa waxa hadaladooda kamid ahaa haddii aanu Cabdi ina geyn lahayn 1987 Rome aanu qaadi lahayn biladii dahabka caalamka oo ninkii Ingiriiska Steve Cram ee caalamka oo dhan u haystay cidna loolin weyday ay Talyaanigu idaacada Xuseeniya waa laga wada dhageystay wixii Talyaani yaqaana una magaro Somalo nin Soomaali oo dhuuban ayaa Cram ka qaaday buu Cabdi taariikhdaas uu Soomaali ku lahaa markasta wuxuu isku dayay guddiga Olombikada inuusan ka maqnaanin meel kasta oo la isugu imaanay saaxada adduunka waxa sharaf maxaa la yiraahdaa qiimo darra waa dhibaato kartaa dhulka waa xoogaa waad fadhigi kartaa laakiin inaad dhimato lagu arkay inaad dhimato laga tilaabsado waa qiimo darro weey marka waxa diiday guddiga Olombikada inaysan loo arag Soomaaliya wada dhintay inay tahay laakiin markasta meesha la isugu yimaado inay ka muuqdaan fagaarahaas gudoomiyaha Olombika Soomaaliyeed ka soo qayb galkiisa aad buu maasan yahay dhammaan fanaaniinta aad iyo aad baa idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh ugu soo gasheen dhammaan qolada warbaahinada telefishinada iyo kuwa idaacadaha iyo kuwa oo wax qora dhamaantiina aad baa u mahadsantiin waxaan u mahadnaqayaa guddiga Olombikada iyo dhammaan bajaaliyada London soo dhaweynta iyo guddiga Olombikada gaar ahaan inay iyagu casuumadan ii fidiyeen anaan ka aqbalay meel ku haboon calankeeni iyo qiimihii uu lahaan jiray iyo balumada Soomaaliyeed mar dambe in la xusuusiyo oo Cabdi iyo calankiisida ugu dambeeyna waxaan la kulmay Cabdi Bila Cabdi oo runtii ah haliyaha Soomaaliyeed oo si balaaran caawa jaaliyada Soomaaliyeed halkan ugu soo dhaweeyeen Cabdi Bila ku soo dhawow marka hore University TV baafaad iyo aad u mahadsantahay adiga iyo Universal ba calanka Soomaaliya ayaa waxaad ka dhex taagtay amba aad ka dhaxluulisay caalamka intiisa kale ciyaaraha Olombikada halkan lagu qaban doono 2012 kan waxa lagu doortay in calanka Soomaaliya adiga aad u qaado farxad intee la eg ku gelinaysa arintaas aad iyo aad bay sharaf iigu tahay in mar kale aan ma aragtay calankii Soomaaliyeed qaado farxad weyn bay ii tahay ummadda Soomaaliyeedna u tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ma aragtay guddiga Olombikada iyaga laftoodu arinta ma aragtay ii fidiyay maxad islaadahay dadweynaha Soomaaliyeed meeshuu ka joogo iyo taariikhdiisu soo aragtaa wallahi taariikhdiisu taariikh guul weyn Soomaaliyeed oo dhan soo hoynaysan arkaa aniga ku hadlay magaca jaaliyada reer Djibouti waxaan leeyahay anagu ku faraxsanahay wallahi bilaa aad baa u jecelahay waa nin hadiyaha aan maxay ahaatay ordiyahana oo caan ah saatirda dadka isugu yimaadeen meesha munaasabada halkan sida balaaran caawa loogu soo dhaweeyay haliyaha weyn Cabdi Bila Cabdi ayaa dad aad u fara badan Soomaaliya waxay soo xasuusteen markii uu soo qaaday calanka Soomaaliya sanadii 1987 ciyaarihii magaalada Rome ee dalka Talyaaniga isla markaana si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho haddaba Cabdi Bila Cabdi ayaa waxa laga sugayaa sanadkan 2012 in calanka hadarkiisaan ee Soomaaliya uu ka dhex muujiyo boqolaalka dal ee ka qayb galaya ciyaaraha Olombikada ka dhici doona magaalada London dabcan Soomaaliya laba ayaa uga qayb gali doonta wiil iyo gabadh oo ka imaan doona dalka Soomaaliya si kastaba ahaatee Cabdi Bila Cabdi ayaa caawa dareenkiisa halkan ku muujiyay isla markaana dadka Soomaalida si aad ay u soo dhaweeyeen Ibrahim Umar Baafe wararka Universal